الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا خير في وناق جعل ما أنتم حروا قصة عجيب بدنا نلو ذاقو قصة سكو سابسن وحاجير جرنين كاسونين معسي يو دم ببناء حدنا عيبة بدنا الله مركز وحكو داجي عيبيسة إنه ترتلو وباباشو لكن وأبودي واي عندما حوتي الشيخ عالم شيخ عالم كأيو حير الشيخ وحيشكته قاب كان سكجة علاجي كرام سكجة داوي كرو عيبها عن بدن شيخنا وحول لا دار وبلن كل جله إنه حل عيب وعيبيس كميدا ومركه هر وداويه عيب تاسنا وحيروا بنتا بين هالشيء نلا شاد أنت كدم بيسرون شيك بلن إلقل إن رون شيء ست ninkii sheekh caalimka balan wuxuu kula galay in noloshiisa inta ka dhiman oo waligiis uu run sheegayo muddo kama soo wareegin ninkii maalin buu khamro soo gatay koob buu ka buuxsaday asagoo cabir rab ayuu soo xasuustay balantuu sheekh la galay wuxuu yiri sheekh caalimka hadduu ku weydiiyo oo ku dhaho khamro ma cabtay ma waxaad dhihi kartaa maya ما ليه كرتا سادرتي مركو حيرا بس قمردان وان جوجينا يا مرك نيكي قمردا تاسو جوجي بين وكعراي درتد يبلانتو شيخا او كقاد او فنت او فيناي ايو رنتاس الى ايو نيكي كجوجي قمره انو عبو ما انت سو خيك دنبي قمر مو قمر سيدي فرا او قادي xogaa markuu joogo hadana maalin kale ayuu rabay inuu dambi ku dhaco hadana wuxuu soo xasuustay balantu sheekha ka qaad oo runt ahayd inuu noloshiisa oo inta ka dambeys oo run ku hadlo sidoo buu uga tagay ninkii waxay sababtay balantu sheekha ka qaaday inuu sheego runta oo been ka fogaado in wax alla wixii ceeb uu lahaayo dhan oo sidaas uga dhamaato halba hal uga dhamaado ilaa uu ku soo baxay ceeb la'aan runtaas oo ilaalinay dartiis sababna waxay u noqotay fadliga iyo wanaaga ee runta ee leedahay in ninkii wax alla wixii xumaan uu sameey jiray dhan iyo wax alla wixii ceeb uu lahaay dhan inay ka baabaan ma aragtay bal fiiri walaalihi wax alla wixii xumaan iyo ceeb iyo uu lahaay dhan bisabab runtaas uu ilaaliyo sheekha balan oo kala qaaday oo balan oo kula galay sheekha ayaa waxay sabab noqotay wanaaga iyo fadliga iyo khayrka uu leeyahay runta la sheego in ninkaas noloshiis wax alla wuxuu ceeb lahaa dhan dhamaadaan wax alla wixii macaasi iyo dunuub uu galaan oo kaga taga run darteed ilaa markaas la weydiiyo waxaan ma sameysay wax ma cabtay khamro ma cunto xas may u dhihla soomo mayadaas uu ka carar marka hadduu dhaano dambigu sameey may hadduu dhaano been uu sheegay saadarteed runtii uu qaatay uu ku liibaano marka saadarteed marka waxa la walaaliyaa inaan ka mid noqono dadka runta jecel dadka runta macaansada dadka run sheegayaasha inaan ka mid noqono oo been iyo xumaan dhan aan ka fogaano been iyo xumaan dhan inaan ka fogaano markaan ka mid noqono dadka run sheegayaasha runlooyaasha ayaan waxaan ku liibaanaynaa adduunyo iyo aakhiro iyo maalinta ilaahay la hortaagaya qofka beenta hadee badato qofka beentiisa hadee badato adduunyo aakhiro ku duloobaya wax faa'iido oo khayr u helay ma qofka hadee runtiisa badato adduunyo aakhiro ku liibaanaya khayr oo dhan iyo wanaag oo dhan uu helay sida darteed walaaliyaal ka mid noqono dadka runlooyaasha dadka runta sheego dadka hadalkooda dhan runta tahay oo beenta dhan aan ka fogaano ilaahay idankiis insha Allah qofka risaalada ay soo gaartay oo ka faa'iideystay dadka walaalihiis ha gaarsiyo si ayagana uga faa'iideystaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.